soo dhawaada dhammaan saaxiibayaal mowduuca muuqaalkan waxaa kugu la wadaagi doonaa shaxdana VAP-da ee ciyaaraha la ciyaari doono caawa ilaa iyo habeen dambe kuwa oo dabcan ku saleyn doono possibility winning-kan inuu ka sareeyo 99% marka haddii aad daawashada ku wareejin channelka waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad channelka subscribe saarto muuqaalkan aad like saarto saaxiibadana aad la wadaagto game-kan ugu horeeya wuxuu noqon doonaa kulan ka tirsan La Liga dabcan waxaana wada ciyaari doono Las Palmas iyo Real Betis. Las Palmas oo kooxaha ugu dambeeya ku jirta kaalinta 16aad, Real Betis oo dabcan ku jirta kooxaha ugu horeeya 10ka ugu horeeya dabcan marka la eego awood ahaan aad uga awood badan wada ciyaari doono. So marka game-kan caadi ahaan Real Betis badis Cristianos ugu badan leh, laakiin even haddii dabcan muxuu ahaay maadaama Las Palmas ay ka cararayso in Serie B u laabato game-ku uu adkaan karo, Real Betis double chance ay sii kartaa. Real Betis waxaa leenahay double chance oo ay badin kartaa ama break gelaysaa. haddii ay badisana dabcan saas dan ku nahnay, haddii break ay gashana sidoo kale dabcan qaabkaas dan ku nahnay. Game-kan ku xiga waa Barcelona iyo Almeria. Game-kan Barcelona waxay u bixaysaa kooxda 20aad iyadana kaalinta labaad ku jirta. Sidoo kale Girona 75 dhibcood leh iyadana ku xigta. Barcelona 76 dhibcood leedahay. Sida caadiga game-kan Barcelona badin karto oo waa win nadiif ah. Soo marka sidaas waxay ku noqonayaan Barcelona badin karta, Real Betis oo badin karta ama break gali karta. Game-kan saddexaad waa isla La Liga ama Spanish Liga. Real Sociedad iyo waxaa wada ciyaari doona Valencia. Labadan kooxood waa isku awood xilligan ama waqtigan la taagan yahay oo waxba kala ma foga. Laba kooxood oo isku xiga inay yihiin waliba u maleynaya. Soo marka Real Sociedad iyo Valencia labada kooxood waxaa leenahay midkooda badin kara ama Valencia badinaysa ama Real Sociedad badinaysa. maadaama Janisku ugu badan dabcan halkaas uu jiro. Soo marka haddii Real Sociedad ay badisana dabcan waa okay, haddii dabcan Valencia ay badisana waa okay oo X2 alifka dabcan qaadanaysa mar walbo. Game-ka ugu dambeeya wuxuu noqon doonaa Al Nassr iyo dabcan Al Hilal waana dabcan game-ka ugu adag ama classic game-ka Saudi Premier League dabcan. Soo marka game-kan Al Nassr waxay ku jirtaa kaalinta labaad, Al Hilalna waxay ku jirtaa kaalinta koowaad. Automatically waa laga qaadaa dabcan liiga hal dhibic bismiya dabcan hadeertan qaaditaanka ay ugu dabaaldigeen Soomaaliya Al Hilal. Soo marka xitaa haddii ay badisaan Al Nassr waxba uma tarto game-kan. Game-kan marka waxaa leenahay Al Hilal iyo Al Nassr labada kooxood midkooda badin karo, ama Al Hilal badinayso ama Al Nassr badinayso. haddii Al Hilal ay badisana dabcan saas dan ku nahnay, haddii Al Nassr ay badisana qaabkaas dan ku nahnay. marka isku dar afartan kooxood oodkooda wuxuu gaarayaa ku dhawaad 3 waana ood aad u sareeya 3.5 waliba waana ood aad u sareeya walibana possibility winning-kiisa ee aad u fiican yahay. game-ka ugu horeeya waa Real Betis oo badis ama break heli karta. game-ka labaad waa Barcelona oo badin karta. game-ka saddexaad Valencia iyo Real Sociedad oo labada kooxood midkood badin kara ama Real Sociedad badinayso ama Valencia badinayso. game-ka saddexaadna waa Al Nassr iyo Al Hilal oo labada kooxood midkood badin karo. Soo marka haddii ay daawashada ku wareejin channelka waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad channelka subscribe saarto, muuqaalkana aad like saarto, saaxiibadana aad la wadaagto. waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan.